waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxa ay naftooda qatar u geliyaan sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedkooda iyo kan ehelkoodaba waa ay ka xawaare dheerayaan kana degdegsiimo badan yihiin gaadiidka kale balse mararka qaar waxa ay ku waayaan naftooda ama qayb ka mid ah lixaadkooda shaqadani ay dhalinyaradan qabtaan ma ahan mid uu darawal kasta ku dhiiran karo waana mid qatarteedu aad u badan tahay dhalinta ka shaqeysatana ay la kulmaan dhibaatooyin ka soo gaara mashquulka wadooyinka maadaama ay xawaare sare ku socdaan waana kuwa u nugul shilalka dhalintan badankood kuma qanacsana xirfadan qaadwadida balse sida ay sheegeen waxa ku kalifaysa duruufaha shaqo la'aaneed ee waqtigan haysata dhalinyarada Soomaaliyeed Umar Cabdiqaadir iyo Muudi waa laba dhalinyaro oo ku shaqeysta xirfadani mooto wadida maraan la kulmay ayaa waxa iga warameen sababta ay ku doorbideen shaqadani iyo haatan habka ay ugu maareeyaan noloshooda anaga teeda kale waxna u kalifay maxay tahay mootooyinka aan wadno dibka jiro waxay tahay anu mootooyinka u kalifay wax la'aan hayso dib bilad shaqo u lahaa meel laga shaqeysan lahay qof walba mooto qof wada la malaha shaqooyinka kala ka badan wadanka dhaqaalu leeyahay laakiin maanta waxa jirta dibka jiro ugu weyn wuxuu yahay shaqo malaha wadanka laakiin wadanka duu shaqo lahaa cid mooto wada la malaha laakiin hadda maanta barnaamijkeena dhan wuxuu noqday dhalinyartii soo baxday oo dhan mooto wataan dhibaato badan danta ay u keentay waxa waaye aqoon ma jirto wax dugsiga iskoola ma jirto wax la'aan baa iska jirto mootada waa iskaga shaqeystaa mootada waa iskaga shaqeystaa dhibaato badan waa la kulmaa xagga askarta dhibaato kale dhaco mootada iska dhacay waxyaalahaas badan la kulmaa kulli waa iskaga qaraata ma dhaaf karo waa shaqadii wallahi tan ka fudud aniga waa waani hadda aan ka shaqeyn inta shaqooyin kale waa qabiil قبيلة شغل سكوسيا سكوت وقبيلة وليهاي دواء برشة تا بوند 5 واي يعني موتورين كاسان سكيش كاسان عوجين وعملنا نشاط آدم ظاهر من فرسل تي في مقدشو